maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa maanta oo Sabti dhageysatay kiiska racfaanka ee raggii dilka lagu xukumay bishii shanaad ee la soo dhaafay kuwaasi oo loo haysto inay kufsi ugu geysteen bishii labaad ee sanadkan magaalada Gaalkacyo marxuumad Caasho Ilyaas oo ahayd gabar 12 sano jir ah kadib markii qareenada u doodaya saddexdan eedeysan ay racfaan ka qaateen go'aankii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ay riday bil ka hor intii dhageysiga kiiska uu socday qareenada xukumanayaasha u doodaya ayaa maxkamadda ka soo jeediyay hadallo ku saabsan suurtagalnimada inaysan raggan geysan falka lagu xukumay halka xeerlaaliye ku-xigeenka guud ee dowladda Puntland uu isna soo bandhigay cadeymo ay ka mid yihiin sawirro oo la xiriira in raggan hore loo xukumay ay geysteen falka loo haysto gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal Sheekh Aadan Maxamed oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maalinta bari oo Axada la sii wadi doono dhageysiga garmaqalka kiiskan la xiriira bari 3 saac subaxnimo insha Allah taala ayay jalsada inoo ku xigtaa halkan ka bilaaban doontaa dhageysiga wixii haray waxa inta ku dareynaa bari daraf waliba gabagabadiisa ku soo daro bari markaan kiiska dhageysano oo cid waliba ay wixii u harsan ama cadeen ha noqoto ama cod ha noqotee ay la timaado maxkamadda way maxkamadda u soo bandhigto kiiskana la gabagabeeyo maxkamaddu macnaha waxaan idin sheegay jadwalka maxkamaddu ku socon doonto maxkamaddu markaa ka bacdi kiiska waxay u diri doontaa xukumkaas waxay ku dabaqi doontaa baxthi aad u fara badan iyo wax alla iyo wixii ay u baahato oo facility oo ay u aragto inay xaq yihiin qaabkay ula soo bixi lahayd ama ay u baaran lahayd iyadu ka bacdi maalinta xukunka lagu dhawaaqayo maxkamadda ayaa dib u iclaamin doonta ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamed Xareed Faarax iyo qareen Mustafa Maxamed Jaamac oo warbaahinta u warbixiyay markii garmaqalka maxkamadda ay soo dhamaatay waxyaabaha la soo bandhigay muddadii ay socotay dhageysiga kiiska racfaanka ayaa warbaahinta si kooban ugu sharaxay kiiska waa kiis weyn waa kiis ballaaran Caasha Allah ma soo dhimatay dulmi waa laga galay waa loogiyahay anagoo kala qiireysan haddana waxaan ka xunnahay in 3 nin oo kale lagu dilo dambi ay sagalin iyo wax loo qariina waa min awal wax la yiraahdo cadeyna maaha qofka laba waxyaalood baa lagu dili karaa qirasho u qirto ilaa 4 jeer waa celiyo soo la baariyo maskaxdiisa inuu fiyo yahay oo wax galiye kale iyo in laba marxaad ay ku cadeeyeen shuhuud oo raga hadbuga ku qoran iyo waxa runta ku hadlaysa waa laba kala duwan waxa kala duwan xariiriyo wixii gabadha biyaha ku dhacay oo waa la isticmaalay oo biyaha laga helo la kusoo isagoo wixii konna ma loo isticmaalay haddaba haddii konna xitaa loo isticmaalay gabadha la toojira konna ma mari karaa waxyaabaha aan ku dirno waxa ka mid ah waa wax baadila waxa la rabaa nimanka in la mariyo maanta taariikhda 22 Juun 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxay dhageysatay kiiskii Caasha oo racfaan ka soo qaateen 3 xukuumane ee dilka lagu xukumay fadhiga koowaad bay yeelatay baritana fadhiga labaad bay yeelanaysaa haddii alla laakiin ilaa hadda cadeymo lagu qanci karo qareenadu maysan keenin oo aan ahayn dood afeedna maxkamad kama socoto maxkamad waa itus oo itaabsi sidaanu darajada koowaad maxkamadda darajada koowaad u tusna u taabsiinay qareenada ayaga laga rabaa cadeymahan keenay inay tusaan oo taabsiyaan maxkamadda racfaanka in hay'adda Forensic Science Puntland baarista ay sameysay yeedantu xalaal soo sameeyay inay waxba kama jiraan laakiin maanta hadday ku meeraysan DNA waxba laga qariyay hana la siiyay ayaga ka hawaasan nidaamka qaanuuneed